saddex gabdhood oo caalamka islaamka ka yaabiyey siday khayr ku jeclaayeen. Adduunyada intaad nooshahay waxaad arkaysaa waxyaalo kaa yaabiya, hadday ahaato arrimo wanaagsan ama kuwo xunba, balse markaad fiiriso jiilkii hore ee ummadda islaamka waxaad isdhahaysaa talow qoomkaasi maxay ku noolaayeen, ma meel dhulka aan ahayn. Haddaba ila dhegeyso saddexdan gabdhood ee caalamka islaamka ka yaabiyey siday khayr ku jeclaayeen. Qisada koowaad, Daxdaax. Markii ay soo degtay aayaddan man da ladii yuqridu allaha qardan xasanan fayudaacifahu lahu adcaafan kaiira, keenaaba amaahinaya ilaahay amaah wanaagsan oo ilaahay u laablaabid fara badan. Aayaddan waxaa maqlay saxaabiga Daxdaax oo nabiga sallallahu alayhi wasallam agtiisa fadhiyey. Markaasuu dhahay, rasuulka ilaahayow, oo ilaahay ma amaah ayuu inaga rabaa? Wuxuu dhahay nabigu sallallahu alayhi wasallam, haa Daxdaaxow. Wuxuu yidhi, ii dhiib gacantaada rasuulka ilaahayow. Waana u dhiibay nabigu sallallahu alayhi wasallam gacantiisa. Markaasuu yidhi, waxaan beertida amaahiyey rabbigay. Daxdaax beertiisa waxaa ku yaal 600 oo geed timireed ah. Waa qof maanta u dhigmaa bilyaneer. Beerta waxaa degganayd xaaskiisa Daxdaax iyo carruurtiisii. Kadibna Daxdaax wuxuu yimid beertiisii, wuxuuna ku dhahay haweenaydiisii, Daxdaaxay ka soo bax beerta, waxaan amaahiyey rabbigaye. Markaasay tiri Daxdaax, wuu guulaystay ganacsigaagii. Daxdaax ilaahay raalli ah ka ahaadee waxay si dhab ah u ogeed in ganacsiga lala galayo ilaahay uu yahay mid lagu guulaysanayo. Sidaas awgeed markiiba waxay ku dhawaaqday, wuu guulaystay ganacsigaagii. Qisada labaad, xaaskii Julaybiib. Julaybiib ilaahay raalli ah ka ahaadee wuxuu ahaa nin madow oo fool xun, wuxuuna ahaa nin dooba oo weli aan guursan. Kadibna rasuulka ilaahay ayaa u doonay gabar reer Ansaariyeed ahayd. Gabadha aabaheed wuxuu ku dhahay, waanu kaaga farxinaynaa rasuulka ilaahayow, oo waan ku siinaynaa inanta. Balse wuxuu dhahay nabigu sallallahu alayhi wasallam, anigu ma guursanayo ee Julaybiib ayaa guursanaya. Wuxuu dhahay ninkii, gabadha hooyadeed ayaan soo weydiinayaa. Wuuna weydiiyey, waxayna tiri, ma Julaybiib ayaa inanteeda guursanaya? Ilaah baan ku dhaartay ma guursanayo. Markuu ninkii doonay inuu kaco oo uu rasuulku laabto ayaa gabadhi tiri, yaa i soo doonay? Waxay dhaheen, rasuulka ilaahay ayaa doonaya inaad guursato Julaybiib. Waxay tiri, oo ma rasuulka ilaahay ayaad amarkiisa ku celinaysaan? Ii geeya, ima dayacayo rasuulka ilaahay. Kadibna aabaheed ayaa warkii u sheegay rasuulka sallallahu alayhi wasallam, waana loo guuriyey ninkii Julaybiib. Dabadeedna rasuulka ilaahay ayaa duulaan u baxay. Markuu dagaalku dhammaadayna wuxuu yidhi saxaabadiisii, yaad weysantihiin? Waxay dhaheen, hebel iyo hebel. Wuxuu dhahay, yaad kala weysantihiin? Waxay dhaheen, cidna. Wuxuu yidhi rasuulka sallallahu alayhi wasallam, aniguse waxaan weysanahay Julaybiib. Waa la raadiyey Julaybiib, waxaana la helay isagoo 7 gaalo ah dilay, isagiina ay dileen. Markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam dhahay, wuxuu dilay 7, isagiina way dileen. Kani aniga ayuu iga ahaaday, aniguna isagaan ka ahaaday. Xaaskii Julaybiib ayaa waxay noqotay haweenka ugu xoolaha badan magaalada Madiina, ee sidoo kale ugu wax bixinta badan. Ma ogtahay haweenaydaasi wuxuu rasuulku ugu duceeyey markii ay guursatay Julaybiib? Wuxuu dhahay, allahuma subba calayha alkhayra sabba, laa tajcal cayshaha kada wa kada. Ilaahayow waxaad ku shubtaa korkeeda khayr ku shubid, hana ka yeelin nolosheeda mid kadeedan oo dhiban. Ilaahay subxaanahu watacaala wuu ka aqbalay ducadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam. Waxaana haweenaydaas guursaday saxaabada waaweyn ee rasuulka, waxayna noqotay maalqabeen kadib markii ay fulisay amarkii rasuulka ilaahay. Qisada saddexaad, xaaskii Abulhaytham ibnu Tayhaan. Maalin ayaa waxaa soo baxay nabiga sallallahu alayhi wasallam, mise waxaa ka hor yimid Abubakar radiyallahu canhu. Markaasuu dhahay rasuulku, maxaa ku soo bixiyey Abubakarow? Wuxuu dhahay, gaajo rasuulka ilaahayow. Kadibna waxaa u yimid Cumar bin Khadaab. Markaasuu dhahay nabiga sallallahu alayhi wasallam, maxaa ku soo bixiyey Cumarow? Wuxuu yidhi Cumar radiyallahu canhu, gaajo rasuulka ilaahayow. Markaasuu nabigu dhahay, anigana waxa i soo saaray waa gaajo. Dabadeedna saddexdood oo wada socda ayaa tegey saxaabi reer Ansaareed gurigiisa, Abulhaytham ibnu Tayhaan. Saxaabigaasina wuxuu lahaa beer weyn iyo ari fara badan. Waxaana albaabka ka furtay xaaska Abulhaytham. Waxay dhaheen, mee Abulhaytham? Waxay tiri, rasuulka ilaahay wuu baxay si uu biyo inoogu soo dhaamiyo. Halkiiba wax yar umay nagaadinba, mise waa yimid Abulhaytham. Markaasuu yidhi, ilaahay baa mahad iska leh, maanta maxaa ka wanaagsan martida? Kadib geed hoostiisa ayuu gogol u dhigay, wuxuuna u keenay timir noocyo kala duwan. Markaasuu dhahay nabigu sallallahu alayhi wasallam, ilaah baan ku dhaartaye, waa har ama hoos qabow, timir wanaagsan iyo biyo qabow, waa nimcada la idin weydiinayo. Abulhaytham wuxuu u tegay arigiisa isagoo raba inuu gowraco neef buuran.
balse nebiga sal ly slm wuxuu dhahay ha gowrico neef dararsan oo cano leh. kadibna wuxuu qoray ceesaan, wuxuuna hilibka u keenay nebiga sala allahu caleyhi wasalam iyo labadiisa saxaabi abubakar iyo cumar radiallahu canhuma. wayna cuneen oo dhargeen. markaasuu rasuulku ku dhaha abulhaytham, cid ku adeegta ma haysataa? wuxuu dhahay maya rasuulka ilaahayow. wuxuu dhahay ii kaalay marka ugu horeysa ay maxaabiis timaado. kadibna nebiga sala allahu caleyhi wasalam waxaa u yimid 2 nin oo addoommo ahaa. markaasuu u yeedhay abulhaytham ibnu tayhaan, wuxuuna ku dhahay 2 nin kala dooro ka kuu adeegaya. wuxuu dhahay abulhaytham, adeeg ii door rasuulka ilaahayow. wuxuu dhahay ruuxa lala tashado waa mid la aaminay ee kan qaado, sababtoo ah salaad fiican ayuu tukadaa ulana dhaqan si wanaagsan. abulhaytham waa baxay, warkii wuxuu u sheegay xaaskiisii. markaasay tidhi, ma dhammaystiraysid wixii rasuulku ku dardaarmay ilaa aad ka xoraysid ninka addoonka ah. kadibna wuxuu dhahay xor baad u tahay wejiga ilaahay. markuu rasuulku sala allahu caleyhi wasalam maqlay warkii haweeneydaas ayuu dhahay, ma jiro nebi la soo dir ama khaliif, hadduu jiraba wuxuu leeyahay 2 saaxiib hoose oo midkood fara wanaagga kana reeba xumaanta, halka kan kalena uu gabadh falayo. ee ciddii laga ilaaliyo saaxiibada hoose ee xun, kaas ayaa dhowrsan. waxaa cajiib ah qaabka haweeneyda saalixadda ah ay u hirgelisay fariintii nebiga sala allahu caleyhi wasalam ee ahayd si wanaagsan ula dhaqma. kadibna odageeda ku baraarujisay khayrka oo ay fartay inuu xoreeyo addoonkii. waxaa diyaariyey sheekh cabdicasiis maxamed ogle, waxaana ii soo jeediyey anigoo ah ibraahim geedi. haddaba si aan soo badanay qisooyinka noocan oo kale ah, fadlan nagu taageer oo video like saar, sina sheergaray saaxiibada gaarsiiyey. haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir, haddii aad hor u joogtana waxaan ku leeyahay waad mahadsantahay la joogaaga.